Xanuunka jacaylka ayaa ah kan ugu xooggan ee gilgilo qofka bini'aadamka. Qalbiyo badan oo waxaa jiro murugada jacaylka mar walba ay dhibeyso u baahnaa daryeel caafimaad iyo xanaano inay ku noolaadaan. Uma suurtagelin waxa ay yihiin ruux daacad ah. Waxa ay gacanta u galeen qof lugooyo badan. Ismahaan waxa ay ka mid ahayd dhalinyarada ku nool magaalada Dhuusamareeb. Waxa ay la soo xiriirtay idaacadda Radio Dhuusamareeb gaar ahaan barnaamijka Madasha Bartamaha. Waxa ay jecleysatay qisada aadka u xanuunka badan in ay u soo gudbiso dhalinyarada ku xiran Radio Dhuusamareeb. Ismahaan waxa ay dhahdeen maalin maalmaha ka mid ah aniga oo marayo suuq ku yaalo magaalada Dhuusamareeb ayaa marqura waxa ay indhahaygu qabteen wiil markaas aan qiyaasayay in dhankaas iyo dibadda ka imaaday. Iskuma mashquulin magaalka inuu ku cusub yahay ayaan dareemay. Waa uu ii wacay wuxuuna iga codsaday inaan geeyo suuqa ama aan soo kala baro suuqa. Waan u sameeyay waana ka aqbalay codsigiisii. Waxaan geeyay suuq weyn oo dharka lagu gado. Waa uu soo adeegtay dharkiisii ayuu soo gatay. Waxaan geeyay sidoo kale meel maqaayad ah oo lagu cunteeyo. Maqaayadii ayaan ka wada cunteynay kadib waan soo waday waxaana geeyay meeshii uu asaga rabay. Markaas ayuu dhahay waa mahadsantahay. Markaas ayaan dhahay adiga ayaa aad u mahadsan, kaliya waajibkayga ayaan gutay. Aniga oo meel aqoon haddaan isku arki lahayn sidoo kale ayaad ii samee lahayd. Lambarkaada ma ii sii kartaa Ismahaan? Wiilkii ayaa dhahay. Markaas ayay dhahday aboowe lambarkay waa kana, waa diyaar, waadna mahadsan tahay. Wiilka Ismahaan ee intaasoo idil u sameynaysa waxaa la dhahaa Khaalid. Habeenkii ayuu Ismahaan bashqad u soo qoray. Markaas ayuu dhahay Ismahaan waxaan kaaga mahadcelinayaa jaaniskii aad maanta i siisay. Markaas ayay dhahdo waa iska caadi. Kaftan dheer iyo wada sheekaysi dheer inta badan waa ay wada qaateen. Mar walbana waxay is xasuusi jireen walaaltinimada waxa ay tahay. Ismahaan marnaba qalbigeeda soo ma gelin wiilkan ayaa ku jeclaa doono. Ismahaan waxay ahayd gabar daacad ah. Khaalid ayaa habeenada ka mid ah waxa uu dhahay Ismahaan maadaama aad tahay ruux daacad ah, aniga waxaan rabaa si daacad ah inaan kuu jeclaado. Waxaan kaa doonayaa naftaada inaan xanaaneeyo. Waxaan kaa doonayaa garab iyo hiilo inaan kaa dhigto. Ismahaan waa ay yaabtay, adduunyada ayaana ku yaraatay. Waxa ay dhahday sababta uu ruuxan kuu jeclaada maxay tahay sababta aad ugu duwan tahay. Maanta ayuu imaaday, adig ayuu ku dhaha waa ku jeclahay. Ismahaan markaas wax xiriira ma aysan lahayn. Waxayna durbadiiba go'aan ku gaartay in wiilkan ay soo dhaweyso. Ismahaan marba waa cabsanaysay oo ma ahayn gabdhaha khiyaanada badan. Ismahaan ayaa dhahday haddii uu daacad kaa yahay oo aad doonayso qalbigayga inaad xanaaneyso, aniga diyaar ayaan ku ahay. Ma jecli qalbigaada aniga xataa inaan murugaysiiyo. Wiil walaalkay ayaa tahay. Aniga waxaan jeclahay jacaylka. Waxaan jeclahay naxariistiisa. Waxaan jeclahay saaxiibtinimada. Waxaan kaa doonayaa saaxiibo wada qaali inaan noqono. Ismahaan markii intaas ay dhahday, Khaalid ayaa dhahay aad baad u mahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinayaa jaaniskaadi siisay. Halkaas ayuu xiriirkoodii jacaylka uu ka bilowday. Muddo ayaa la wada socday. Habeen walba bashqada ayaa la isku soo diri jiray. Kulanka hal habeen ayuu dhici jiray isbuucii. Halkaas habeenna waxa uu ka dhici jiray guriga Ismahaan. Wax walba ayay ka wada sheekaysan jireen. Soomaalina waxa ay dhahday qofnaba qalbigaada lama wada siiyo. Ismahaan inay isceli weysay jacaylkii ayaana ka farabatay. Waxa ayna dareentay cabsi aad u xooggan sababtoo ah dareenkeedii oo idil ayuu soo jiitay Khaalid laakiin waxa uu ahaa ruux innaba naagtii uu arka aan ka fakanayn waan ku jeclaa dhaho. Sidoo kale Khaalid waxa uu ahaa nin xaasla ah oo markuu imaaday xaas guursaday ama xaaskiisa ay guri joogtay. Muddo ayay wada socdeen. Ismahaan waxay ahayd gabar daacad ah. Mar walba waxa ay wici jirtay ama ay xiriiri jirtay Khaalid iyo Ismahaan baraha bulshada ayaa lagu wada sheekaysan jiray. Mar walbana waxa ay isku xasuusi jireen jacaylka halkay marayso. Khaalid markuu arkay gabadha inay si aad u jeceshahay ayuu waxa uu isku dayay in uu la gooyo ama uu khiyaano.
mar walba ee wacdo taleefanka ayuu ku dhageysan jiray, mar walba ee wacdana kama uusan qaban jirin. bashqadaheeda inuu arko ayuu ka tilaabi jiray. Markaas ayuuna dhihi jiray allah jaanis uma hayo iyo waxyaabo kale ayuu markaas u dhihi jiray. wax walba ay samayso ruuxa jecel ayay ahayd, waa ay u dul qaadi jirta danta iyo heelada markaas jirto. mararka qaar marka uu ka qabta ayay dhihi jirtay halow idil ayaan ku soo wacayay, marnaba igama qaban, jaanisna ima siin, maxaa ka wadaa? markaas ayuu dhihi jiray waa mashquulsanahay. wax walba waxa ay isbedeleen markii muddo fara badan ay wada socdeen. habeenada ka mida Ismahaan ayaa taleefankii Khaalid wacday. qof haweeney ah ayaa ka qabta. markaas ayay dhahday maxaad doonaysaa, maxaan kaa caawiyaa, maxaan kuu sameeyaa? markaas ayay dhahday waxaan doonayaa wiilkaas ee Khaalid ayaan u baahanahay, ee ma iigu gey kartaa? markaas ayay dhahday abaayo Khaalid oo hurda, aniga xaaskiisa ayaan ahay. markii sidaas lahay ayay dhahday waa mahadsantahay, markuu imaado waxaa dhahdaa Ismahaan ayaa ku soo wacay. haye ayay dhahday Ismahaan. markii taleefanka ay ka baxday gebi ahaanba dareenkeedii ayaa isbedelay. waxa ay la kulantay cabsi aad u xooggan iyo argagax ayay dareentay. waxa ay dhahday khiyaanadii uu kugu waday ayaa soo baxday. waxayna sidoo kale iska dhaadhicisay marnaba inuusan jeclayn wiilkani oo qiyaamo ee wax walba ka tahay. markii dambe ayaan ay wada socdeen Ismahaan waxa ay la kulantay caqabado tii ugu xooga badneed. waxaana caqabadaha Ismahaan ay la kulantay ka mid ahaa in bartii Facebook ay kala hadli jirta blog oo iskaga qabtay barihii bulshada oo dhan, oo meelihii ay ku wada sheekaysan jireen blog oo iska saaray. habeen ayuu soo wacay. markaas ayuu ku dhahay Ismahaan aniga walaashii ayaa tahay, waxaan rabaa inaan kuu sheego wax in muddo aan kaa qalinayay, taasoo ah aniga xaas inaan leeyahay, mana doonayo inaan kula sii socdo, keliya waxaan rabay magaalka inaan kugu fahmo, kadibna markii aan dabeecadaada soo jiito aan kaa tago. taasi macnaheedu waxa uu yahay xiriirka jacaylka ee naga dhexeeyay inuusan aniga daacad iga ahayn. Ismahaan hadalkii intii la waday ayay ooysay, waxayna qalbigeeda ka dhaadhicisay ruuxan inuusan daacad ahayn. Ismahaan ayaa markaas dhahday adiga oo xaas leh xataa aniga waan ku rabaa, mar uun iga aqbal xiriirkeeni. waxaan jeclaan lahaa in barihii bulshada aad blogga iga qaado si aan mar walba codkaada iyo muuqaaladaada aadka u quruxda badan aan arko. markaas ayuu dhahay ma samey karo, codkan aad maqlaysana caawo waa kii ugu dambeeyey. Ismahaan waa ay yaabtay, waa ay ooysaa, wax ay samayso ayay garaweysay. markaas ayay afki baajuuqda gaba ayuu noqday. qolka ayay iskaga jirtaa, ma soo baxdo. cuntadii la keenana waa la keenaa, waa la celiyaa. isbitaal walba oo la geeya negatif ayaa loo soo qoraa, sababtoo ah wax cudur ah ma qabto, keliya caqabadaha markaas hortaagan ayaa qabo. qof walba uu u imaado oo dhaho Ismahaan maxaa kugu dhaca, waa aan fiicanahay ayay dhahdaa, waa u sheekaysaa oo keliya, wax kale afka uma raacsiiso. markii sidaas ee ahayd waxa uu sameeyey taleefankii gacanta ahaa ayuu iska bedelay. Khaalid mar kale ayay Ismahaan isku dayday lambarkii oo soo qaatay inay wacdo, isla gabadhii ayaa ka qabatay. markaas ayay dhahday walaal waxaan kaa doonayaa inaad ii nabadgeliso, ninkayga aniga ayuu iqabaa. Ismahaan waa ay yaabtay, wax ay samaysay ayay garaweysay. markaas ayay dhahday waxaan kaa codsanayaa hal mar uun inaad iigu dhigto si aan u maqlo codkiisa. markaas ayay dhahday makuu samey karo. Ismahaan waa ay yaabtay. markaas ayayna dhahday allah ruux naxariis lagu soo dhoweeyey, caqabadahan haddana kula kulansiiyey, haddana naftii lagu aamina xafido waayey, miyuu dareen yaqaanaa? alla cadowsanayaa, dhibaatada muxuu iigu fiirsanayaa? anigaa jecel, anigaa soo dhoweeye, anigaa nafteeda u wada dhiibay. miyuusan naxariis lahayn? miyuusan ogeyn jacaylku waxa uu yahay? Ismahaan waa ay yaabtay, wax ay samaysay ayay aqoweysay. mar walbana waxaa isweydiisay sida fudud ee nafteeda ay u bixisay iyo sida caqabadaha ay kala kulantay.
Ismahaan hadda waxa ay durbaba nafteeda ka dhaadhicisay inuusan jaceylku wax jira ahayn. Khaalidna waxa uu iskaga raaxaysanaya noloshii cusub uu samaystay. Caqabadahaas ayaana inta badan dhaco. Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed, Socdaalka Dunida, Radio Dhuusamareeb, gaar ahaan barnaamijka Madasha Bartamaha ayaad ka dhageysanayseen. Ismahaan gabar walaashiin ah qofka